kulan wacan oo wanaagsan saaxiib yaal halkaad nagala socotaan waa Muuse Media Page. Qodobada warkaan idigu haynana waxaa ka mid ah baarlamaanka dalka Turkiga oo go'aan ka gaaray mooshin ka dhan ah ciidamada Turkiga ku sugan Soomaaliya. habraacyadii doorashada ee lagu heshiiyay oo fashilmay. saaxiib yaal qodobadaas waxaa in qodobada uu door karno warkeena. fadlan haddii aad ka cusub tahay barteena YouTube-ka subscribe noo saar si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka caalamka halkan aan ku soo baahino. hagaag saaxiib yaal waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ansixiyay mooshin ogolaanaya in ciidamada Turkiga ee ku sugan Soomaaliya loo kordhiyo waqtiga ay sii joogayaan Soomaaliya. baarlamaanka dalkaas ayaa ansixiyay mooshinkaas oo lagu dalbanayay in ciidamada Turkiga ka jooga Soomaaliya loo ogolaado inay halkaasi sii joogaan ilaa 10 bisha Febraayo 2023. mooshinkan ayaa waxaa baarlamaanka horgeeyay madaxtooyada Turkiga oo codsatay in muddada loo kordhiyo ciidamada Turkiga ee ku sugan gudaha gacanka cadmeed ee badda iyo xeebaha Soomaaliya. waqtiga ay ciidamada Turkiga joogayaan dalka Soomaaliya ayaa waxay u ekaanaysaa 10 bisha Febraayo ee sanadkan, waxaana hadda loogu daray muddo hal sano ah. waa markii 14aad ee Ankara ay kordhisay joogitaanka guud ee ciidankeeda gacanka cadmeetan iyo markii ugu horeysay ee uu meel mariyay baarlamaanka sanadkii 2008. dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya ka samaysatay saldhig military oo weyn kaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa Turkiga oo ka qayb qaata tababarada ciidamada Soomaaliya. ciidamada ay tababaraan dowladda Turkiga ayaa ka qayb qaata howlgallada kananka kooxaha argagixisada ee Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay saaxiib joogto ah la ahayd Soomaaliya iyo markii ay isku soo gurmatay xilligii ay dalka ka dhaceen abaarihii khatarta ahaa waqti ugu adkaa ee madaxweyne ka ahaa Shariif Sheekh Axmed. gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxuudiin Shaata oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyay in habraacyadii doorashada ee lagu heshiiyay 9 bishii hore aysan dhaqagalin. gudoomiye Cismaan ayaa sheegay in xarunta ururada bulshada rayidka ay soo gaareen cabashooyin dhowr ah oo la xiriira doorashada golaha shacabka oo ku socota hanaan musuqmaasuq ah. bulshada rayidka waxay aad ugu xun tahay in sidii ugu habboona loo hirgelin go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee bishii Janaayo 9keedii, waxayna taasi aad ugu sii fogeynaysaa kalsoonida shacabka ay ku qabi karaan doorashooyinka dalka mas'uulka ka soo baxay, ayuu yiri. xarunta ururada bulshada rayidka ayaa waxaa soo gaaray warbixino muujinaya in si dhammaystiran aan loogu dhaqmin qodobadii ka soo baxay heshiiska. waxaa soo jeedinaynaa in madaxda dowlad goboleedyada ay fuliyaan go'aanadii ka soo baxay shirka Muqdisho. sidoo kale waxa uu sheegay in weli caqabado ka jiraan sidii loo xaqiijin lahaa nidaamka xulista ergooyinka, xuquuqda musharaxa u taagan doorashada golaha shacabka iyo madax bannaanida guddiyada dowlad goboleedyada. waxa uu ku baaqaynaa madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka inaysan ku dhaqaaqin tallaabo kasta oo keeni karta khilaaf caqabad ku noqon kara doorashooyinka dalka, lagana fogaado in dhibaato ka dhalato habka loo fulinayo doorashooyinka. gudoomiyaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in shaki weyn uu ka muujinayo xaqiijinta qoondada haweenka maadaama aan si rasmi ah loo dhaqangelin qodobadii lagu heshiiyey, wuxuuna ka dalbaday gudiyada in la soo hormariyo kuraasta haweenka. hadalkan ayaa imaanaya xilli ay soo baxayaan in musuqmaasuq ballaaran uu ka jiro doorashada golaha shacabka, iyadana waqtigii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyana ay ka harsan tahay 22 maalmood oo kaliya.